naxariistu waa dhalad rabbi kugu dhaxaasay qofka aad mar dhugataa soo nasiibku ma dhaxo. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kulatu wacan wanaagsan halkan naga daawanaysan waa channelka TV Luuq News Official. halkan aan hadda ku sugannahay waa degmada Luuq waxaana maanta si qurux badan ay taageerihii gobolka Gedo ee degmada Luuq u muujiyeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo macal dhalinyaradii oo iskuulaadka ay u muujiyeen iyo odayaashii culimadii culama diinkii dhamaan ay u muujiyeen taageer aad u weyn ay ka codsadeen xildhibaanada baarlamaanka inay codka isiyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. anagu waxaan rajaynaynaa xildhibaanada Soomaaliya maanta ay codkooda gacanta ku jira shacabka iyo dalka iyo dadka ninka wax u taraya in la doortaana muhiim u ah. dadkan hadda wada tartanka ku jiro qof kulli waa soo wada aragnay kuwa xildhibaan ku soo aragnay kuwa wasiir ku soo aragnay kuwa madaxweyne ku soo aragnay dhammaan waa soo wada aragnay de waxaan rabnaa aan markaas asleenahay dadka wax u taray ama dalku wax u taray ayaa rabnaa in codka xildhibaanada ay siiyaan ninkaas oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan ku niri arintaas ayada waxay tahay waa nin amaanada aad u ilaaliyay amaanada dalka iyo dadka aad buu u ilaaliyay waa nin aan hanti dalka ka samaysan waa nin aan dadkii dhicin waa nin aan wixii lagu aaminay si ahayd ooga soo baxay. marka waxaan idinka codsanaynaa haddii aad tihiin xildhibaanadii بريت عد كذا لها ورلعق وحمد ترى العق واحد ماته لكن المهين الجيل كهذا الجو يوعي سيدنا وح مستقبل يا وحلقون نقطة وحنا اللي ترى وهذا كعصرنا هذانا ودياشي إن النكاس محمد عبد الله فرماجة مدحونا إن سيسان عدكين. بعد تغيير مدحونا الصومالية فرماجة برمان عسبان لي إن فرماجة نص عليان إلى كعبسان برشلونة يو طيارة نيجا صوت طيارة. سلام كل قالتو يقدر هيا برلمان كصوماليا. سلام بعد جيت وحارد كعد سنينا عنقو قبل كجدو أفكي سكوه الله إنه أردقن كي قبل كجداء قارهان الدقمة اللوق هذا محاكو هذا شركة شرايد عن كو قبرني حلبان كي حلال oo Soomaali ah oo dadka iyo dalka iyo diinta u naxayo oo asagana inuu maxaan ku raahdaa xildhibaannimo ku ahaado magac dawladeed rabo in codkiisa uu siiyo madaxweynaha dalka xildhibaan Soomaaliyeed baad ku magacaabantiin xildhibaan reer hebel ma ahidin madaxweynahana waa astaantii qaranka xildhibaan baana inaad tiraa qarankana aad dibin daabiyeysana wax isdaboolahay wax isu dheelitirmo ma aha ilaahay baan idinku dhaariyay qabiil aakhira janno idin geyn mahaye qarannimada taageera dalka iyo dadka iyo diinta maxaan ku raahdaa u hiiliya haadaan alla idin la gooy hada codkii u diidan madaxweynaha oo qof kale ajnabi wadanka gata ay siidsan dadka Soomaalinimada diidan qarannimada diidan Soomaali inay soo baxdo diidan oo shisheeyaha la socod haday codkiina siisaan ilaahay idin kala abaal waxaan baa u direynaa xildhibaanada Soomaaliya ee hadda talada gacantooda ku jirto ay baarlamaanka joogan baaqan u direyn waxay tahay inay dalka iyo dadka iyo diinta ay u naxaan ujeedkan u leenahay waxay tahay baadi bay ahayd Soomaali baadinimadii bay ka soo bixiyay madaxweynaha wuxuu qabtay wuxuu taray masaakintii u badbaadiyay maxbiistii adduunweynaha ku maqdeen buu soo xareeyay hawadii Soomaaliya soo celiyay badii uu soo riday ciidan rilliya dhisay ninkaas wadanka iyo dawladnimada wuxuu taray waxaan idin ka codsanaynaa xildhibaanada Soomaaliya daatiin inaad codkiina siisaan ee baarlamaanka waxaan u sheegayaa oo ka codsanayaa inay codkooda siiyaan ayaga fursad bay haystaan maanta inay codkooda siiyaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shacabka Soomaaliyeed meel kasto joogan dal iyo dibad waa ninkay aad u taageersan yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ninka la dhahayo waqtigiisa dhamaaday mishaaraadkana ciidamada iyo shaqaalaha dawladda dhammaan inaba hayraatay 23 bisha ku sii
hadday cuuriyaamadii hore oo qaranka ay yihiin iyo kuwa hadda cuuriyaamay dhammaan meel kastoo joogaan shacabka Soomaaliyeed waxay siiyaan 23 bisha ayuu mushaaraadka siiyaan in codkooda ay siiyaan maanta fursad bay haystaan codkooda ay siiyaan maxaa Cabdullaahi Farmaajo mooshin baan keenayaa iyo saana yela imaaradan daba socdaa iyo shisheeyaan daba socdaa war shisheey waan qarribay dalku ayuu gadanayaa macdintiina iyo kheyraadkiina ayuu shisheey u socdaa waxba ilma taraaya ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegay qof iyo cod hadii ay gaarto annaga aan waxa sameynayna og laakiin hadda waxaan u sheegay shacabka fursad bay haystaan inay codkooda siiyaan maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxaan aniga xareed barre raayadayda hadii aan ka hadla waxaan taageersanahay madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan baarlamaanka ka codsanayaa in ay codkooda siiyaan ninkaas si ummadda Soomaaliyeed 4 sano oo soo socoto cadaalad ugu hogaamiyay midnimo waxa weey wax qabadkii iyo waxyaalihii uu qabtay oo weli aanan la arag madaxweyne qabtay intii yani madaxweynayaal oo ka horeysay sidaas ayaan ku taageeray haddana waan taageersanahay baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay u codeeyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si ummadda cadaalad iyo midnimo ugu hogaamiyo musuqmaasuqnimada iyo gumaysiga iyo ihaanaysiga si aan ugu baxno oo dawlad qaran oo Soomaaliyeed aan u noqon halkan waxaan ka cadeynayaa madaxweynaha Soomaaliyeed inaan taageersanahay aan diyaar u nahay dal iyo dibid meel kasta oo joogno oo naftanada u horeeyay in lagu soo celiyo madaxweynaha aan ku hananay dalka aan ku nasan Soomaaliyeed ee jeclaatay waxaan ku jeclaanay wax qabadkiisa ummadda dhan uu qabto daryeelka Soomaaliyeed uu qabto guumaysan naabka waxaan jecelnahay inuu Ilaahay noo soo celiyo madaxweynaha naga cusub waxaan ka codsanayaa inay noo doortaan aabaha naga Soomaaliyeed ee Farmaajo Bismillaahiir Rahmaanir Rahiim marka koowaad waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed marka labaad waxaan ka codsanayaa xildhibaanada Soomaaliyeed ee cusub in ay soo celiyaan Farmaajo oo ah muwaadin u dhashay dalkan aaminayna inuu yahay Soomaali waxba ma fiicna in dad nimanka u shaqeynaya shisheeyaha ama shisheeyakaalka inaysan dalkan waxba u qabanin Soomaalinimada nin ay ku weyn tahay weeye Ilaahay inay ka baqaan ha soo celiyaan madaxweyne Farmaajo mid walba oo xildhibaan waxaan ka codsanayaa inuu madaxweyne Farmaajo codkiisa u deeqo asagoo uu leeyahay ama uu ahmiyadiisa u siinayo Farmaajo waa ninkii yani hawada Soomaaliya ku soo celiyay wadankiisa dhexdiisa lagu maamulayay wadan shisheeye waa ninkii maxaabiista meel walba yani lagu haystay Liibiya meel walba soo celiyay oo keenay wadankooda waa ninkii yani qof walba oo gumeys ku jiray yani keenay wadankiisa asagoo yani inta iyada ilaalinaya dastuurka u yaala dalka baanada cusub waxaan ka codsanayaa gaar ahaan xildhibaanada laga soo doortay gobolka Gada iyo dhamaantood xildhibaanada kale oo maamul goboleedyada kale sida Puntland Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug dhamaantood waxaan ka codsanayaa inay codkooda ugu heliyaan madaxweyne Farmaajo